الرحيم maantay oo ay taariikhdu tahay 1 bishii 9aad waxa halka ka bilaabatay shaqadii 1 bishii 1aad 2022 halka laga dhagax dhigay ahayd in laga dhiso degmada Carmo bishii laga dhiso degmada Carmo ku dhawaad 6 kiiloomitir iyo 300 kiiloomitir oo laami ah oo isku tashi ah marka maanta waxa halkan ka bilaabatay shaqadii 2 kiiloomitir ugu horeysay oo socon doonta ilaa 4-5 maalmood soo socota insha Allah sida injineeradu warbixinta ku bixiyeen shaqadani waa isku tashi bulsho weeye runtii waxaan aad ugu mahad celinayaa bulshada reer Carmo dal iyo dibadba oo shaqadan iyagu qaybta ugu muhiimsan ka ah isku tashi dadku haday dabcan inay wax qabsadaan waxay qabsan karaan waxay doonaan marka tan waxay tusaale u tahay maanta dalka Soomaaliya oo la ogyahay abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jira haddana bulshada reer Carmo may ilaabin inay abaartana qayb ka noqdaan oo ka qayb qaataan gacanna ay abaarta iyo dadkooda dhibaataysan kaga qayb qaataan gacanna ay ku dhistaan dalkooda bulshada reer Carmo iyo guud ahaan bulshooyinka Soomaaliyeedba sidoo kale kama marna oo halkan dawladdu door muhiim bay ku leedahay intan waa bilow waxaan rajaynayaa insha Allah doorkii ugu muhiimsanaa inay dawladdu qaadanayso haddii alla idmo ballanqaadyada madaxweynaha mudane Said Abdullaahi Dani iyo sidoo kale wasaaradaha ay ugu horeyso wasaaradda arrimaha gudaha wasiir Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad aad baan ugu mahad celinayaa dhiirigelinta ay noo sameynayaan bulshada iyo maamulka degmada Carmo إن شاء الله تعالى لحدا كلنا وكحجيسا بإذن الله تعالى مركب ما أنت وحنا لنا هاي برشاد رار عرمو دليل دبدبة شغلان ودبلحات كده إنك ويا وحال الربا أنت نوكليا معها وحنا رمنا دقمة أوردن إن كشقينه إن شاء الله تعالى إسكتش جانينا وحو قيب كي رار عرمو إسكتش شدي معناه هذا وحو يرار بنتلان وإسكتش شدي هي السمالوين وإسكتش شد رار عرمو وحي عنوان ويهين isku tashiga maanta dalka ka jira bulsho markay tashato waxay doonaan bay qabsan karaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada saxaafadda raadiyaha telefishinka Puntland oo maalintan mashruucan bilowna ilaa maanta heegan u ah tabintiisa iyo la wadaagida bulshadiisa oo ugu horeeyo wariye dadaal aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa 100% sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xaggan isoo istaag injineer Maalfo xaqiiqdii ma aha inaad codkayga ka jarin injineer Maalfo wuxuu ahaa aniga isagu waxaan ahayn mashruuci 2 kiiloomitir ee magaalada Boosaaso lagu dhisay dadkii iska wax u qabsada ugu shaqeynay isla mar ahaanta hatta maalmihii yaraa ee caqabadu timi dartii isu xiray oo xabsiga u galay maantana 2 sano 3 sano kadib wuxuu dhisayaa oo qayb ka yahay oo waliba uu dibdhaxaad u yahay wadooyinkan injineer Maalfo laantis shaqadani ma fusheen oo uu dibdhaxaadkii injineerka si gaar ah ugu mahad celinayaa 100% waxaan leenahay dhammaan bulshadana aan gacmaha is qabsano sidaas aynu wax ku qabsan karnaa mashruucan wadooyinka markaan dhamayno ama idnaga ku dhex jira waxaan noogu xiga mashruucii degmada Carmo inay yeelato jaamacadii ay u baahnayd aniga muddadan degmada joogay labada su'aalood ugu badan igu soo noqnoqda waxa weeyaan Carmo waa inay wadooyin laami yeelataa Carmo waa inay jaamacad quality la yeelataa labadaas weeye marka labadaasna fariinteedu waxay tahay tii koobaad ee wadooyinka waa muujinay tan labaadna insha Allah ta'ala bisha 10aad wixii loo gaaro baan ka hawlgalaynaa bulshada waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno haddii aynu helno waxbarasho fiican macnaheedu waxay noqonaynaa bulsho quality insha Allah ta'ala aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa dhalinyarada reer Carmo runtii door weyn bay ku leeyihiin maanta halkan waxa jooga gabdho iyo wiilal aan waxba meeshan lagu siinayn iyagu guryahoodii ka yimi uma soo daawasho tagin waxay u yimaadeen inay doorkooda qaataan inay la shaqeeyaan injineerada inay dhiirigeliyaan inay dhalinyarada iyo ardayda ka celiyaan waxyaabo maartay maadaama meeshan shaqo ka socoto dhalinyarada waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa guddigii hawshan isu xilqaamay oo dhammaantood mudan kulligood bila sharaf in la siiyo oo agti igala joogo tabadha
dhalinyarada hoggaanka dhalinyarada tabadhaan wuxuu ka mid yahay dhalinyaradii kicisay mashruucii daliftiinshe marka hal doorkii baa mashruucan wada aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin assalaamu calaykum